halkan oo aan ku sugannahay oo ah xerada Gaashaale Khadar oo ah dugsiga tababarada ciidanka booliska deegaanka oo ku taal degmada Birqod ee gobolka Jarar waxaa maanta tababar lagu soo xiray ciidan boolis oo noqonaya dufcadii 17aad ee dugsiga tababarka ee Gaashaale Khadar ka baxda waxaana munaasabada lagu soo xiriyay ciidankan booliska kala soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo heer deegaan ugu horeeyo hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale iyo sidoo kale komishineerka guud ee komishanka booliska deegaanka Soomaalida sareeyo guud Cabdi Cali Siyaad waxa sidoo kale ka qayb ahaa gudoomiyaha gobolka Jarar iyo sidoo maayarka magaalada Dhagaxbuur munaasabadan ayay intii socotay ciidanku ay ku soo bandhigeen dowlatus ciidan oo kala duwan oo ka qayb ahaa casharadii kala duwanaa ee muddada ay halkan ku jireen lagu tababarayay hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida mudane Cabdiqaadir Rashiid Ducaale iyo sidoo kale komishineerka guud ee komishanka booliska deegaanka Soomaalida sareeyo guud Cabdi Cali Siyaad oo labadooduba ka hadlay munaasabada ayaa waxa ciidanka kula dardaarmeen in ay bulshada deegaanka Soomaalida qaybaha kala duwan meel kasta ku sugan yihiin in ay si hufan ay ugu shaqeeyaan waxa ii farxada maanta inaan ka soo qayb galo qalin jabinta ciidanka dowladda deegaanka Soomaalida ama ciidanka booliska deegaanka Soomaalida oo halkan ay ku qalin jabinayaan ciidankii halkan ku tababaranayay sanadkii la soo dhaafay ee dafcadda 17aad sidaan ognahay deegaanka Soomaalida wuxuu soo maray taariikho kala duwan oo dhammaantood marka dib loo raaco ay ku salaysan yihiin colaado iyo taariikho midow muddadii dowlad dhiska deegaanka Soomaalida wuxuu la kowsaday marxalado kala duwan oo dhammaantood shacabku xasuus qurux badan aynan u lahayn waxaan la soconnay in colaado ehli ah oo gudaha ah inagoo u kala safan jabhado xurriyad u dirir ah jabhado kale iyo ciidankeenii oo ka soo horjeeda marka 7 sano la soo dhaafay waxaan xasuusanaa wixii ka horreeyay in wiilasheennu ay iska soo horjeedeen iyagoo dhammaantood dhinac walba ay ka fikirayeen inay difaacayaan qadiyadda deegaanka Soomaalida balse muddadii isbeddelka dambeysay waxaa la xaqiijiyay inaynan shacabka iyo qadiyadda deegaanka aan lagu difaaci karin aragtiyo iska soo horjeedo ishardiyay waxaa lagu guuleystay in jabhadihii iyo ururadii kala duwanaa iyo dhammaan dowladdiiba lagu heshiiyo in wiilasha Soomaaliyeed dhexdooda inaan isku dhiman taa waxay xaqiijinaysaa in Soomaalida maanta deegaanka Soomaalidu ay dhinac u jeedo in deegaanka masiirkiisa la wada difaaco taas inaan ku soo hagaagno muddaxileedka iyagan sharaf bay noo tahay baan ugu faraxsanahay ciidamada qaybooda kala duwan ee ku qalin jabiyay xirfadaha kala duwan waxaad ogsoon tihiin inaad qaadeen mas'uuliyad adag oo ay tahay inaad naftiinna u hurteen dadkiinna diintiinna iyo deegaankiinna waxaad hurteen waa naf markaas wax ka qaalisan oo la huro ma jiro nafta aad hurteen waxa idin hor yaallo caqabado badan naftu bilaash kuma baxdo dhayal kuma baxdo caqabadahaasi waa cadowga deegaanka Soomaalida waa cadowga bulshada Soomaalida waa cadowga diinta islaamka ee haysana markaas inta in la xifdiyo nafteena aan u hurno mas'uuliyadka adag oo kale ma jirto waxaan leeyahay Ilaahay idinku asturo deegaanka Soomaalida mabdeen waxa weeye inaan nabadgelyada ilaalino marka hore nabadgelyada aan ku ilaalino nidaamka dastuurka ee sharcigu nafaray wixii sharciga jabiya markaa waxa ciidamada faran oo mas'uuliyad naga saaran tahay inaan difaacno dastuurka waxaan ogsoonahay deegaankeenna inay ku soo duuleen xooga kala duwan argagixiso iyo kuwo kalaba ciidamada kala duwan oo kaashanayo shacabkooda waxay si nafhur ah u difaaceen sharaftii iyo qiyamkii ummadda Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay waxay maanta shacabkeennu ku gamaan ee ku hurdaan inay yihiin nafhurka aad qaadeen iyo ballantaad qaadeen waxaan sii laba jibaaraynaa haddii alla idmo inaan dhisno
ciidamadeedna kala duwan tayadooda la dhiso tiradooda la dhiso bagaad maanta nabad ku soo gaadheen waxaad qaadateen tababar adag waqti adag oo kulaylo ah waan dareemaynaa culayska uu leeyahay laakiin mas-uuliyadana saaran ayaa ka weyn mas-uuliyadda dhammaanteen ilaahay nagu asturo saraakiisha iyo taliska booliska deegaanka Soomaalida dadaalka aad habeenaya maalinba ku bixinaysaan inaad dhistaan tayaysaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee booliska deegaanka Soomaalida waxaan idin haynaa bogaadin iyo garab istaag mar walba inaan idinku garab istaagno idin dhiirigelino wax walba oo ay ciidanka u baahan yihiin aan mas'uuliyaddeeda qaadano hadda waxaan isugu nimid dufcaddii 17aad qalin jabinteedii ciidankan wuxuu tababarka ku jiray muddo 6 bilood ah sida aad ka arkayseen dowlatuskii kala duwanaa ee ugu horeyn xabad ridkii iyo siltigii qaybtii tukaandhooga iyo qaybtii selfiga ciidan tababar fiican qaatay weeyaan aad iyo aad baan idinku hambaliyanayaa tababarka aad qaateen maanta laga bilaabo waxaad ka mid noqon doontaan oo aad ku biiri doontaan ciidamadii idinka horreeyey oo deegaanka amnigiisa in badan soo sugayey nafuris fara badan nagu soo sameeyey maanta laga bilaabo waxaad siin doontaan shacabkeenna shaqooyinkii ma garanaysa ee shacabka ay u qaban jireen ciidamadii idinka horreeyey askariga caqabadihiisu way iska fara badan yihiin askariga waxaa looga baahan yahay sabir waxaa looga baahan yahay dulqaad waxaa looga baahan yahay inuu shacabka u adeego oo adeeg ma garanaysaa ka hufan musuq ka hufan qabyaalad ka hufan wax walba oo ma garanaysaa shaqada booliska xumeynaya inaad uu siiyaa loo baahan yahay marka maanta laga bilaabo shaqooyinka waxyaalaha shaqooyinka booliska xumeeye ka hufan inaad u diyaargarowdaan yaa loo baahan yahay mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin hambalyaynaynaa ku soo dhowaada maanta laga bilaabo waxaad soo gasheen guriga ciidanka booliska DDS waan idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhoweynaynaa